waxaan dadka wada keentaan ma waayna بسم الله الرحمن الرحيم قدوميها gobolka قدوميها degmada agaasimaha waaxda bulshada shirkadda Golis maamulaha shirkadda gobolka Karkar iyo dadweynaha iyo shaqaalaha dhammaan saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh salaan kadib warku way iska kooban yahay maanta daafur weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno shirkadda Golis oo macaamiisheeda bulshada Puntland ku soo celinaysa baabuur hortayda yaala oo maqraanti ka dhahay bulshaduna maqraanti ka tahay oo nasiibkiisa qof walba ku tijaabinayo marka waa qorshe wanaagsan aad iyo aadna looga mahadceliyo bulshadana waxa leeyahay ka faa'iideystaan oo sidii hadda sistamka loo sheegay ee loo galo oo lambarada qofku uu fahmo sida loo galayo sida agaasimuhu sheegay waa waxa ugu muhiimsan weeye waxaan leenahay arrin wanaagsan weeye shirkadda Golisna uga mahadcelinaynaa inay bulshadeeda Golis markii la yiraahdo wax badan bay ku celisaa bulshada halkan hadda wax lagu soo koobi karo ma laakiin kulli maanta waxaan u taaganahay waxa way gaarigan iyo macnaha uu leeyahay iyo magaalada Qardho oo ay u doorteen iyadana macna kale dadka reer Qardhooda inay sameynaysaa waa leen ku jecel marka waxaan ka leeyahay war qaybtiina ka qaata qof walba nasiibkiisa ha tijaabiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhamaantiin